xildhibaan ka inaad dhegeysataan fadlan. bismillaahi raxmaani raxiim. gudoomiyaha golaha shacabka ama baarlamaanka, saxaafadda iyo shaqaalaha dhammaan waxaan idinku salaamayaa, iyo wasaaraddii maaliyadda iyo bangigii dhammaan marti sharafta saxaafadda shaqaalaha waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Hal la dhegeysta xildhibaanka. warahmatullaahi wabarakaatu. xildhibaanada sharafta leh hal la dhegeysta xildhibaanka. waxaan ahay xubin ka mid ah guddiga maaliyadda, waxaana ahay 10 xubnood ee cabashada muujiyey ama diidmada ku soo qoray qoraalkooda. waxaana ku caddaynayaa oo aan ku difaacayaa diidmadayda inay run tahay. marka ugu horreysa waxaan usoo jeedinayaa guddiga maaliyadda wixii maanta ka horreeyay inay ahaayeen guddi maaliyadeed oo shaqadiisa ka adag run ahaantii si wanaagsanna u wada shaqeeya. laakiin warbixintan waxbaa ka dhacay. waxa ka dhacayna waxay tahay sidaan la wada socono baarlamaanka iyo siyaasiyiinta intaba waxaan ka warqabnaa in wax kasta oo cid ka dhaxaysa in la wadaago. warbixintan sideedaba sidaan la socdo waxaa loo sameeyey guddi hoosaad. 2 xubnood oo ka mid ah guddiga ayaa loo diray shaqadan. way ka soo shaqeeyeen wayna noo keeneen. annagoo fadhino guddigu inta badan ay fadhido ayaa warbixintii aan u shidanay project derbigaana loogu shiday waana loo iftiimiyey sidii caadada noo ahayd xaraf xaraf inaan u akhrino. markii aan gudagalnay warbixintii waa ka walaacnay run ahaantii. waxaa la yidhi warbixinta siiqadeeda ayaa khaldan, waxaana loo baahan yahay in siiqada la sax. sidaa la socotaan marka warbixin aada gudbinayso waa inaad af soomaaliga ama siiqada aada u saxdaa. hadalkaa la joojiyo. guddoonku wuxuu soo jeediyey inaanaan waqti iskaga qaadin oo aan siiqada saxno, aana u dhiibno xubin ka mid ah oo ah xokayaha guddiga oo isaga fulinteer yiri anaa qaaday. wuu qaaday. markuu qaaday wuxuu ku soo daray wax aanaan la socon. markuu ku soo daray ee warbixintii aan aragnay inay wax ka khaldan yihiin waa diidnay. waxaan idhi warbixintan waa khaldan tahay mana u baahnin. annagoo meesha fadhinan dheg jalagna looma siin, hawshooday wateen markhaati iyo marag ani waaweysaa qaba cidaa u eexanaya ma jiro run ahaantii. maanta qof aan difaacayo qof aan u eexana waa intaan ka ogaa guddiga aan ka tirsana. meeshaan fadhinay cidna dhegaysanaysay iyo cid hadalkeenna qaadaysa ma jiro. hawshoodaa la watay, barnaamijkooday wateen. xubnihii gaarka ahaa isyaqaaneen run ahaantii. barnaamijkooda markay wateen maalintii ahayd talaadada iyo khamiista ani waa ka baaqday. khamiista oo ahayd maalintii lasoo gudbiyey sidaan ku maqnay waxaa fadhiyey guddiga waxaa ka joogay 5 xubnood oo keliya ayaa jooga. waa maqnayn aamino waa maqneed, aniga waa maqneed, inta meesha ku qoran waa maqneed. sidaan la soconno xildhibaano marka barnaamij lasoo hordhigaayo cidda ay ka dhaxayso waa in kooran ku dhan yahay sidii caadada noo ahayd oo aan caado u naqaanay. war kooranka ma noo dhow yahay aan istirino 1 2 3 4 5 maya waa kala dhimaya guddiga ha loo yeero. maanta aan baajino shirka guddiga ha loo yeero ma ay dhicin, nalooma yeerin. haddii cod la qaadayo wixii loo soo gudbinayay baarlamaan weynaha waxay ahayd in cod loo qaado. annaga miyaana loo yeeray? magaaladan joogay aniga maxaa la iigu yeeri maxaa la oran waaya maanta cod baa la qaadayaa imo messajka inta loo soo dir. waa runtiis xildhibaankii uga horreeyey whatsapp baan leenahay, email baan leenahay, maxaa la iigu soo sheegay cod baa dhacaaya sahra kaalay codka wax ka bix maxaa la iigu ama diid ama yeel miyaa laygu yiri? ma lay tusi karaa messajkii la ii soo diray? maya. waxaan leeyahay arrinkaas waa wax kama jiraan, guddiguna uma dhama, annagaa koorankii ah. waxaan leenahay warbixintaas way khaldan tahay, dib ha loola noqdo. salaamu calaykum. maadaama lasoo hadal qaaday xogayaha